بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ah arbaco 9 bisha Febraayo 2022 madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaaw Xuseen oo uu heliyo madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Yuusuf Axmed Hagar waxa ay maanta kulan la qaateen maamulka gobolka Hiiraan iyo guud ahaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka kulanka maanta waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha degmooyinka waxaana looga hadlayay arrimaha amniga gobolka Hiiraan iyo abaaraha ka jira deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan kulanka gudoomiyaasha degmooyinka waxa ay madaxweynuhu la wadaageen arrimaha amniga iyo abaaraha ka jira waxayna faahfaahin guud ka bixiyeen baaxadda abaaraha ka jira gobolka Hiiraan iyadoo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan madaxweynuhu oo la wadaagay warbixin guud oo la xiriirta abaaraha ka jira guud ahaan gobolka madaxweynuhuna waxa uu sidoo kale ballan qaaday in si degdeg ah biyo dhaamin iyo gurmadba la gaari doono deegaanada iyo degmooyinka abaaruhu ay ka jiraan hadba sida loo kala darayahana loo gaarsiin doono waqtiyada ugu soo dhow haduu alla ka raali noqdo madaxweynaha ayaa sidoo kale faray maamulka gobolka Hiiraan in si degdeg ah ay uga qayb qaataan xaqiijinta xasilinta amniga magaalada Beledweyne si looga hortago dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay ku hayaan bulshooyinka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kulankeena maanta inta ayuu ku saabsan